markabkii labaad ayaa xeebaha maamul goboleedka Puntland taagan kaasi oo looga shakisan yahay inuu sanad military isaguna ku raran yahay labadii maalmood ee la soo dhaafay iyadoo si weyn loo hadalhayay markab hore oo ciidamada maamul goboleedka Puntland ay gacanta ku dhigeen kaasi oo shixmad sanad military ah siday oo ilaa iyo haatan aan ciidana sheegan habeennimadii xalay ahayd ayaana maamulka Garowe ay ka soo saareen war ay ku sheegayaan in ay markabkaasi la degi doonaan sidoo kalena baadhis dheeraada ay ku sameynayaan iyadoo warar hilhelayay saacadihii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay jiraan sheegashooyin iska soo daba dhacaya oo markabkaasi sanada military siday ee marsada magaalada Boosaaso ku xidhan la xiriira iyadoo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka tirsan maamulkaasi Puntland ay sheegeen in laga warqabay maraakiibta tan sidee sanada military oo laba ka kooban kaasi oo ay kii ugu horeeyay gacanta ku dhigeen halka midkii kalena uu taagan yahay biyaha maamul goboleedka Puntland iyadoo si weyn looga shakisan yahay inuu isaguna ku raran yahay sanad military haddaba maxaa laga ogaan karaa ilaa iyo haatan maraakiibta iska soo daba dhacaysa ee sanada military ku raran kuwaasi oo lagu qabqabanayo xeebaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyadoo waqtigan xaadirka ah ay bad xiran tahay sidoo kale dabaylo xooggan ay dhacayaan oo maraakiibtaasi u suurtagelin waayay inay gudbaan ama se beegsadaan bartilmaameedkii ay ku socdeen muxuu ka yeeli doonaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani markabka taagan iyo kan kale ee biyaha maamul goboleedka Puntland taagan hadii lagu guuleysto soo qabashadiisa ama se shakiga laga qabo inuu sanad military sida ay rumowdo ma sheegan doonaan maraakiibta tan shakhsiyaadkii ay u rarnaayeen ee sanadan military qarashka faraha badan uu ka soo baxay warbixinteena ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay maraakiib la guuraysa sanad military oo sharci darro ah ayaa ku soo qulqulaya maamul goboleedka Puntland toddobaadkii ugu dambeeyay iyadoo markabkii labaad oo looga shakisan yahay inuu hubsido ay ku weetaynayaan ciidamada maamul goboleedka Puntland badweynta maraakiibtan ayaa waxa ku noqday wadeeco iyo wax warkooda soo gabagabeeyay inay sidaan hub sharci darro ah badda oo kacsan iyo dabaylo xooggan oo dhacaya sida uu sheegay mas'uul ka mid ah maamul goboleedka Puntland ee gobolka Raas Casayr oo la wareystay ayaa waxa uu daboolka si cad uga rogay in markabkii labaad ay hadda sheeda ka eeganayaan kaasi oo si weyn looga shakisan yahay inuu sanad military isaguna la guurayo balse badda oo kacsan awgeed ay ciidamada maamul goboleedka Puntland haatan gaari waayeen hase yeeshee uu ku rajo yahay in gacanta lagu soo dhigo isagana markabkii hore ee Seawall ayaa waxa uu ku xidhan yahay marsada magaalada Boosaaso iyadoo ay dawladda Puntland habeennimadii xalay ahayd ka soo saartay war qoraal ah oo ay ku faahfaahinayso markabkaasi waxa ay ka yeeli doonto iyo talaabooyinka ay qaadayso haddaba maraakiibtan iska soo daba dhacaya ee sanada military ku raran maamul goboleedka Puntland miyuu sii ogaa maxay tahay sababta ay ciidamadoodu isugu diyaariyeen ee badweynta uga soo qabteen mas'uul ka tirsan maamulkaasi oo la wareystay ayaa waxa uu sheegay in maraakiibta tan ay ka sii warqabeen kuwaasi oo hore loogu soo wargeliyay inay waqtigaasi ku soo beegan yihiin xeebaha maamul goboleedka Puntland ay yihiin kuwa isqarinaya oo raadaalada dansanaya marka ay marayaan meel ay ka shakisan yihiin qorshahani ayaana waxa uu hadda sii noqonayaa mid la sii ogaa oo maamul goboleedka Puntland uu si weyn isugu sii diyaariyay inuu maraakiibtaasi gacanta ku dhigo maadaama ay hub sharci darro ah ku raran yihiin ilaa iyo haatanna markabkii hore ee Seawall oo ay muddo 48 saacadood ka badan gacanta ku hayaan aanay ciidana sheeganin in kasta oo ay jiraan wada hadallo hoose iyo sheegashooyin aan kor loo qaadin kuwaasi oo aan la ogeyn faahfaahinta iyo is-afgarashada laga gaaray ugu dambeyntii waxaana si weyn la isu weydiinayaa cidda maamul goboleedka Puntland soo ogeysiisay maraakiibtani inay hub sharci darro ah ku raran yihiin iyo waqtiga ay ku soo beegan yihiin xeebaha maamul goboleedka Puntland balse waxay u muuqdaan markabkan la qabtay iyo kan kaabiga loo saaran yahay kuwa xogtoodu ay qoto dheer tahay oo haatan aan lagu soo koobi karin tibinaha iyo warbixinaha ay warbaahinta Soomaalidu sameynayso maamul goboleedka Puntland ayaana habeennimadii xalay ahayd war qoraal oo uu soo saaray waxa uu ku faahfaahiyay natiijada ka soo baxday baadhistii ay ku sameeyeen markabka Seawall talaabooyinka ay ka qaadi doonaan ee markabkaasi marka ay baadhista dhameeyaan xukunkiisu waxa uu noqonayo maadaama uu si sharci darro ah ku soo galay xeebaha Soomaaliya sida ay sheegeen sida oo kalena uu sanad sharci darro ah siday taasi oo haatan ku jirta gacanta dawlad goboleedka Puntland
waxa kale oo ay ilawareedyadu intaasi ku darayaan in saanada military maamul goboleedka Puntland uu la degi doono maadaama oo haatan ay isaga gacantiisa ku jirto ilaa iyo haatan aan lahaynin cid sheegata. markabka kale ee isagana looga shakisan yahay inuu saanad military sido sida kan haatan ay gacanta ku hayaan ayaa mas'uulka maamul goboleedka Puntland u hadlay waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan sidoo kalena baar eeganayaan inkastoo ay jirto dabayl badan oo ka dhacaysa badda oo suuro gelin weyday markabkaasi in la hubiyo waxa uu sido maadaama uu haatan laga shakisan yahay balse aan si rasmi ah loo ogeyn. rarka uu markabkani ku raran yahay maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay saacadaha soo socda kala xaqiijin doonaan markabka badweynta taagan iyo shakigoodu in ay is arooraan iyo inuu noqdo markabkaasi kuwii shixmadaha caadiga ah siday. markabka Seawall ee isaga la cadeeyay inuu saanad military ku raran yahay ku xiran marsada Boosaaso ayaan ilaa iyo haatan la cadeynin tirada saanada ah ee uu sido. fila Soomaaliya ayaan iyaduna weli ka hadlinin markabkaasi iyadoo si weyn loogu eedeynayo hubkan inuu Xasan Sheekh Maxamuud leeyahay iyo rag ganacsato ah oo magaalada Muqdisho hubka ka ganacsada. si kastaba ha ahaatee maamul goboleedka Puntland ayaa markabkii kalena gaadaya midna gacanta ku haya kuwaasi oo ay sheegeen inay go'aamo ka soo saari doonaan marka baarista ay ku wadaan ay dhammaystiranto. wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinayna soo aadan. ma u baahan tahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumtiisa machadka Luqmaan Al-Hakim Islamic Online machadku maadooyinka uu bixiyo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo ahkaamtiisa barashada hingaada iyo qoraalka barashada ducooyinka barashada xadiista nabiga barashada luqadda carabiga barashada luqadda Soomaaliga haddaba si aad iska diiwaan geliso kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda